waxay yidhahdeen daraasaadka cilmiga ee dambe xataa caafimaadka qoladan maanta ka shaqaysa waxay tilmaamayeen daraasay tilmaameen cilmiga Hong Kong ay ku sameeyeen oo dadka Hong Kong baadheen markaas waxay yidhaahdeen laziness-ka iyo waxqabad la'aanta iyo sigaarka bulshada keebaa dadka leyntiisa ku badan bay dhahay sigaarka waxa la wada yaqaanaa inuu sun yahay oo boysiyo dadka laayo cagsiga iyo iska fadhiga ka batay iyagu daraasaday sameeyeen qolana 6,800 meelahaas ay noqotay qolana 5,700 maanta waa kuwan yidhaahdaa xanuunada ugu tirada badan lee bini aadamka ku dhaca waxa keena bay yidhaahdaan maxay exercise la'aan exercise-ka la sheegay inaad boodboodo quran ma waa inaad wax qabato uun laakiin haddaad iska yuururto una fadhidid qof fadhiya habeen iyo maalinba caafimaadkiisaba khatar ku jira ka kaalay nolosha inaad waxtar ku yeelato iyo wax soo saar inaad yeelato ee waxa khatarta gelaya waxa weeyaan maxay adiga caafimaadkaagii baa khatar gelaya walidaalka bay atabada maanta waxay tilmaamayaan qofku inuu nashaad iskeliyo ma macaan baad qabtaa ma sokor baad qabtaa ma kan baad qabtaa maalintii intaa soco intaa qabo yani waa wax qabo fadhigu markaa caqligana uma fiicna iska fadhigaan waxba lagu qabanaynin jidhkana uma fiicna aakhirana uma fiicna adduunna uma fiicna lazinessku markaa nolosha meel laba wax kagama leh ee waxa meesha taalla qofka mu'minkii inuu muntij noqdo qof wax soo saar leh inuu noqdo weligaa ha moodina wakhtigu ku dhaafay dadka badhbaa isle faataka alqataarkay sheegi jireen yacni wakhtigiiba tegaya intaan meesha fadhiyey inta kuu hadhay cimrigabaa wax soo saar yeelan karta laga yaaba dadka badhaysa oo maanta konton jirbaad ee waxbaad baran karaysaa dad baa konton jirraynta ku bilaabeen culimmadii ugu waaweynay dunida noqday ma garanaysid cimrigaagu intuu ku gabagaboobi doono ma garanaysid inta ilaahay adiga jaanis ku siiyey adigoo waxa ku xilka ku saaranay wuxuu yahay inaad rumaysato cimrigu weli mutasac baa jira nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo taa inugu dhiirinaya wuxuu tilmaamayaa in qaamat isaaca وفي يد أحدكم فصيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها نبغى عليه هدو قيامه حقا كصوب لا بصاقعه وأدقعنتك هيسه فصيلة ده وحلا إذا جت مريت كير الله أبغى ليه جت مريت إذا أدقعنتك هيسه هذا تكجر سينكرتين هذا أبغى شبه نبغى له يا أبغال بير هذا تكجر سينكرتا بير وإننا أيضاً قيامة بيننا نركين بين فردنا ونولين وين جبوبي سومالي ده أفرتن شركة كو جبوبي ده سوما في الصومالي مركو بني آدم كبوا حق بدنا مركو جارو أيوة ده هذا وين جبوبه وحول بوي كنا بعضه بني آدم كو عقل كو كجبوبه هذا ما إنك كجبوده أيوة ما تجبوده أنت كلا وحبات قبان كرتا أنت كلا وحبات قبان كرتا ساوجد النبي عليه الصلاة والسلام وحينات المامية قبل الموت إن فرص جرو أنت جاردك كهرسانة فرصات هيسطو فرصات وحلوق قبطين هيسطو واحد يريسان يساوي حوي النقضة واحد يريسان سبحانه قد هذا صدر القرآن أين القيب توا وح كل يرسمه حتى وهذا مالك استصدر قيب وقرما القرآن كردمين تصدر قيب وقرما القرآن كردمين waxay dhahaan dhowr iyo 10 sanadood dadku dhamaynaysa hadaad maalin kasta sadar qaybto hada waa sadar hal sadar waxay dhahdaan wax qabadku taraakumka beeritaanku qiimaha ku sameeya markanaad qabanayso wax yaraantiisa ayay ku muuqanay hadaad maalintii hal safxa qorto hal page hadaad maalintii qorto sanadkii imisaad soo saaraysaa ugu yaraan 2 buug baad qori kartaa sanad kasta waayo sanadku waa 365 maalmood hadaad maalin kasta page qorto macnaheedu waxa weeyaan ugu yaraan buug 300 page ka badan ayaad qori kartaa laakiin hadaad tiraahdo ma xaashi aan qorayba buug noqon doontaa maxaan xaashi ka qori doona aqoontu iyo waxqabadku iyo waxtarku taraakumka inay biirtaabay wax ku noqotaa wax kasta oo biira aakhirka wuxuu tagaa maxay wax qiimo leh buu noqdaa taasa waxay keensanaysaa inaad waqtiga waxba yaraysanin
in wadaada wuxuu ii tilmaamayay jaamacad buu master degree ku qaatay isagoo shaqo kale markaa wada inta uu gaariga soo socday uu gurigiisa ku sii socda buu dhageysan jiray una cajiladii jaamacadda warkeeda inta loo duubo ayuu wuxuu dhageystaa inta maxay uu gaariga sii wado hadda intaad gaariga gurigaaga jaamacadda inta tagtay inta gurigaaga ku sii socota inta aad dhageysato ayaad ku qalin jabin kartaa laakiin waa hadday taraakumto dee waa haddaad maalin walba sida tan u dhageysanayso marka waxaan uga dan leenahay camalku iyo waxqabadku iyo waxbarashadu iyo wardigu iyo wax waliba in la biiriyaabay wax ku noqdaan in la joogteeyaabay wax ku noqdaan camalka inaad joogtayso ayuu wax ku noqonaya ilaahayna wuxuu ina leeyahay walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclawna in kuntum mu'miniin war dadka mu'miniintow wahniyuu idinku dhicin ha niyad jabina hana murugoonnina idinkaa korreeya baa ilaahay tilmaamayaa haddaa kuwa mu'miniina tihin haddaad dariiqa iimaanka raacdaan waa korraynaysaan xataa markan awooddaadu intaad qaban kartaa ha yaraata laakiin intaa qabo sawgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu leey waka'ayin min nabiyin qaatala macahu ribbiyuuna kaiir famaa wahanuu lima asaabahum fii sabiili illah wamaa dacfuu wama stakaanuu wallahu yuxibu asaabiriin badanaa inta nebi qaatala macahu ribbiyuun maciise ay la dagaal galeen kuwo rabbi loo nisbeeyey dad ilaahay isu dhiibay oo may daciifin wixii dhib soo gaadhay may isdhiibin may isdhuldhigin ee waxay noqdeen dad walow markaa ha lagaba xoog batee wada camalkii ilaahay intay natiijada ka gaadhayaan ayuha alaxiba marka xadiidka kan wuxuu nebigu ku gebagabaynayaa calayhi الsalaatu wassalaam weer tilmaamaysa ereyga low ah wixii kaa tegey tiiraanyadooda inaanad isku mashquulin oo wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi الsalaatu wassalaam ha odhanin bal ma haddaan sidaa iyo sidaa yeeli lahaa waxaasaa soo bixi lahaa saasaa noqon lahay faina low taftaxu waxay furtaa low waa camal shaydaan albaabka shaydaankay furtaa oo maxaa jira alqadaa walqadar mar hadduu ku dhaafo lama calaacalo qaar baa waxay yidhaahdeen low kaanuu cindanaa maa maatuu wamaa qutiluu hadday nala joogi lahayn waa kuwo munaafiqiina waxay leeyihin muslimiintaa soo dhimanaysa hadday iska joogi lahaynoo nala fadhihi lahaayeen maa maatuu wamaa qutiluu manay dhinteen labana dileen ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu u tilmaamayaa قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وأنا حتى قريه نادا كجرتان أنت وقتك وكرنا ما تجرد ويوم الله يبقى إله إليه سبحانه وتعالى سأوجد لو هاي علماء قارين هذا موضوع التعليم كون بيكون في عنتي يلا استعمالك راه ومثلا جامعة بتكسو غالي جبسي wixii aad barataa marketka aan shaqo ku lahayn qof yar baa ku yidhi ila tale markaasaa waxaad ku tidhi maanta haddaan jaaniska haysan lahaa low kaan haddaan jaaniska haysan lahaa kan maan galayna kaasaan geli lahaa waa litacliim qofkan baad rabtaa inaad tidhahda war natiijada anaa waddadan soo marayo ma fiicne waxaad isku daydaa maxay kan kale inaad saas daraaddeed buu nebigu lahaa low istaqbaltu min amri ma stadbartu markii ay uu tilmaamayey dadkii soo xidhay cimrada ama xajka soo xidhay ee xalaaloobi kari waay ee hadyiga waday haddaad hadyiga waddo ma xalaaloobaysid haddaan arrinkayga hadda wixii soo dhaafay hadduu hadda ii bilaabmi lahaa buu nebigu leeyahy hadyigana maan soo kaxeeyeen dadkana waan la xalaaloobi lahaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam culammada waxay yidhahdaan markaa min baabi tacliim iyo meelaha hadday tahay waa bannaan tahay laakiin baabu calaacalka hadday tahay bay leeyihin ma bannaana وهو محي قل ما شاء الله كان وين تربيستا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وحي تجي وحبك ما بدالي كرتي ما دام أنا وحبك بدالي كرينين إلهي وحوق الماما وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلهي وحدون مويانه
wax kaloo idinku dooni kartaan ma jirto ina allaha kaana caliiman xakiima bale waxaad ka calaacalaysa waxaaba laga yaabay khayrku saa ku jiray wacasa an takrahuu shay-an wa huwa khayrun lakum waxaan ku soo koobaya markaa xadiidka dhammaantiiba nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay mu'minka waxtarka ah ee nafciga leh ee xooggiisa iyo caqligiisa iyo wixiisu qabanayo nashiidka ku firfircoon qawiga ah ayaa ka khayr badan mu'minka daciifka ah mu'minnimaduna dhammaanteed waa khayr marka horeba dardaarankaana weyna siiyey wixii ina anfacayana inaynu samayno ilaahayna inaynu gargaarsanno cajsiga iyo kasliga iyo waxaana inaynu iska dayno wain asaabaka shay-un falaa taqul haddii wax sidii aad rabtay natiija u dhici weydana ha odhanin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaan sidaa iyo sidaa yeeli lahaa laakiin waxaad tidhaahdaa qul qadara allahu wamaa shaaa facal faina low taftaxu camala ashaytaan sala allahuma calaa muxamadi wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin